الدين والدين وصلى الله على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد waxaa kulan aan caadi ahayn isugu yimid golaha sare dhaqanka iyo guddigii 330 ahaa kulankaas oo looga arrinsanayay war ka soo baxay caynaba oo wasiirada maamulka Soomaaliland ay kaga dhawaaqeen xabad joojin waxaan u malaynayaa hadeer backgroundka waa laga maqlayaa xabad dhacaysa oo magaalada madaafiic lagu soo garaacayo annagu awalba weerar maanan ahayn kuryahayagii baanu joognay dadka yagaanu dhex joognay waanu tashanaynay ilaahay hadduu kuu roon yahay weerarku maamulka Soomaaliland buu ka socday walaha ma tashan karaysaan argagixisaa tihiin ilaahay hadduu kuu roon yahay dalkan iyo dadkan ma lihidini ilaahay hadduu kuu nooga taga waa mahadinaynaa hadday garteen inay iyagu weerar soo ahaayeeno dadkan dhibaateynayeeno ay yiraahdeen dhibaatadu waa ka joojinaynaa oo xabadda waa ka joojinaynaa waa soo dhaweynaynaa xabad joojin waa soo dhaweynaynaa in aanu danahayaga aanu ku gaadhno si nabadgelyo hase yeeshee xabad joojintu waa inay dhab noqotaa waa inayan siyaasad noqon waa inayan noqon ku meel gaadh waa inay xaqiiq noqotaa xalay iyadoo maamulka Soomaaliland uu ku dhawaaqay xabad joojin ayaa haddana saaka ay xabad soo rideen ilaahay dukuuray madaafiic ku soo garaaceen magaalada waxaa la yiri meydkee u dambeeyo waa kan la sii sido isbitaalka gargaar ee magaalada Laascaanood ku yaala waxaa ku soo dhacay madfac waxaa ku dhintay Dr. Cabdisalaam Muuse Saciid adeer waa taana dul maraysa Dr. Cabdisalaam Muuse Saciid yaa ku dhintay garaad Mukhtaar garaad Cali Buraale oo halkan fadhiya dariishadiisa xabad baa ku soo dhacday garaad Mukhtaar xabad ma haysaa garaad Mukhtaar garaad Cali Buraale gurigiisa dariishada dusheeda xabadaas oo lagu yiri shilka weeye yaa ku soo dhacday iyadoo video duubay oo ka hadlayana wuu hayaa baraha bulshadaanu soo dhigi doonaa waxaanu leenahay walaalahayo walaalayaalow hadday xabad joojintu dhab idinka tahay ciidankan magaaladan aad ku caburinaysaan ilaahay hadduu aad ku duqaynaysaan ilaahay hadduu kuu roon yahay aad ku dhibaataynaysaan dadka ku laynaysaan ka fogeeya annagu dad isxakamayn karaanu nahay dad ciidankooda u taliyaanu nahay dad ilaahay hadduu kuu roon yahay xabad joojin qaadan kara fulin karana waanu nahay hase yeeshee idinkama muuqato xabad joojintii aad xalay jeediseen ficilkiina kama muuqato oo maanta waxaad soo qorayseen haddana cunaya saxaafadiina waxaad ku soo qorayseen waa argagixiso in la iscaayo oo la maago oo xajiin hadal xajiin la isku yiraahdo iyo in la yiraahdo xabad joojin iyo nabadgelyaanu rabnaa isma qabanayso xabadda iyo hadalka xunina waa isku mid haddaan hadalka xumi sii xumayn haddaan hadalka xumi uusan fogeyn waa isku mid warkiinii ku noqdo laba arrimoodba ugu noqdo waa argagixisana raaligelin ka bixiya ciidankiinana ka saara oo ka fogeeya meesha ciidanka iyaga ay iska gaarayaan wabillahi tawfiiq